awoowe cunug hoos u koriyo korba u koreeni inti ma ahayd makasee wow aniga waa yaraay markid aad cunug weyn ahayd ilmo yaraa iska dhige dadka hoos u kuu diyaataa wejiga was welcome ayay kulaa dayax dalluursa nafta u keenta dadka kale maa kusoo goobsate laakiin weji subsan ku dhabalaayo sanka cadiinta ka fuushi fariin caafimaad habdhaqanka looga badbaado corona ama aad uga hortagi karto waxaa ka mid ah in gacmahaada aad ku dhaqdo saabuun ama aad ku buufiso alkolada disha jeermiska fadlan ka ilaali wejigaaga gacanta oo ha taabanin ka hortaggu waxa uu ka wanaagsan yahay daweynta fadlan ka fogow meelaha dadka faraha badan ay isugu imaadaan ha ku quficin qof kuu dhow haddii aad aragto qof ku qufacayana ka fogow ilaa iyo 1 mitir sababtoo ah bakteeriyada ama fayrasku wax 1 mitir ka badan ma socon karo haddii aad isku aragto xanuun fadlan iskarantiin inta aadan dad badan u gudbin yaa quwwata isku soo noqod wanaagsan daawadayaasha hawada noogu heelana waxaan filayaa muddadii aan hawada ku kala maqnayn inaad inoo hilowdeen barnaamijkii Daraama Show aanu xogta ku kala qaadan jirnay waanu idinka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada awgeed daawadayaal laakiinse waxaan rajaynaynaa inaysan mar dambe soo noqon doonin arrinkaas intii aad noo samirteenna waad ku mahadsantihiin iyo fariimaha aad noo soo dirayseen halkeed ka baxdeen iyo halkeed ku maqan tihiin taba daawadayaal barnaamijka maanta waxa uu daaran yahay ama aan wadnaa waa fanaanada فاطمة الشيخ هلولة يوحى يكدارن تهاي قدر كيو قدر إبراهيم كيو إمك حشاشة مقالدي هالجيسة وهالكاسين هي ساد ونكسن أو كسو صار يسي فنانكي كلا يقام السوقاني فاطمة شن عمل بيوقع سنتها عود أي سقط الضوء يسوى فنانك قدر كيو كل تعريمة arrimaha daasan bay ku haysataa oo si xun bay baalaha uga rifaysaa daawadayaal waxaan nala daawanaysaa codadkaasi ay ama nala dhageysanaysaa iraade Faadimiina ay baalaha uga rifaysaa qadar keyo geeduday geed faqaydaas waayo bo beentaadii inaaligaadaan bakayaabana adila dheesa sheeka oo khasabeelan qasadana indhaade allahu akbar isgad ninkaa xun waa waaye anideeyo waxaa rabtid nakeen waaba xumaananba ku dhooya caydaan dhan makaste weji aan leedahayna male muqdishoona waa la imaana adoogaa malaha abkoogaa malaha dadka dhana iskale laakiin weji subsan ku dhabalaayo sanka cadiinta ka fuushi welcome awoowe cunug hoos u koriyo korba u koreeni inti ma ahayd makasee wow aniga waa yaraay markid aad cunug weyn ahayd ilmo yaraa iska dhige dadka hoos u kuu diyaataa wejiga was welcome ayay kulaa dhilada ku dhasho laga roona ciyaal waa beri aniga markii fugooga bilaabeysa maaragta fan soo galin oo lagu fugaa ciyaal waa beri ku taataabanaa cunug yaroo bushq adoo caana geel cunug kastoo naag nin kasta hoos ku gashaa ku fugaa aa ogaa ani lagugu bilaaway haddaa kastoo fanaan naqad wax weynaa iskuma leehe miya laga roonaha taawas dhilada ku dhasha wase afkayga haddaan kuu furo wallahi fankaa joojinay heerbaadiyo dhaadhaanka cadowga oo mashiidiyaha oo manaxaa qalbiga xuno qofba wax u quureeni dayax dalluursa nafta u keenta dadka kale maa kusoo goobsate yaa hoy habar weyn adiga khaniisiinta ugu horeey fanaaniinta soo galaanaa tahay moogado habar weyn laba sabax mawasahaa taawase adaaba meed aaba dhima rabtaa adaaba dad caynay miya la ilaaha illallah ciyaalka yaryariiska oo ku fugaayaan le iska jooji horta dhilada ku dhasho iskumalewsamiya heesaa dadoo koobiga ele deeman saa u raacis deemankiina ma jirtid dhinacaad dhinacii soomaalidana ma jirta dhexdaa xamar haddaan kuga imaadana afka lugta kaa gelina afka bal u kaad Faadimiina lugta afka ka gelina ma dalqamee ma tajee waa tahay daawadayaal waxay ahayd Faadimiina oo baalaha ka rifaysa dadsi la yaqaan u jirtay qadarkeeyo dagaalka sida uu ku socday waxa uu ku bilowday xaqiiqadiisa wali faraakuma aynu hayno hase yeeshee daawadayaal wixii kusoo kordha waan idinla wadaagi doonaa hadduu alla awood Israa'iil ka noqdo barnaamijka Daraama Show weeyaan dee wixii daraamaha oo fanaaniinta xaggooda ku saabsan dadka caankaaba waad nagala socotaan daawadayaal
barnaamijka haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socoto wixii cusub iyo daraamadaba barnaamijkiisa kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo